dadka sheekh jirkooda wax ku sawiro oo wax ku sameeyo xalaal ba mise xaraan arintaas ma qof jirkiisa waxa ku qabo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la'ana Allahu al-washima wal-mustawshima al-mughayyirat khalq Allah hadithka akhirkiis washmiga waxa la dhihi jiray waxa loo yaqaanaa iridka ama jirka midabkiisa in midab kale lagu tallaalo oo wax laga bedelo waaga hore waxay sameyn jireen iridka ayaa midab madow lagu tallaali jiray hada laakiin jirka lagu tallaalaa Soomaa marka qaarkood sawir baa laga dhigaa libaax baa lagu sawiraa mar waxay ku sawiraan naagtu jeclaabo ku sawiraa naagtu ninkay jeclada isku sawirtaa marka waa kan soo sheegnay jawaabtiisu mas'alo horan ka jawaabaynay ilaahay jirkii uu abuuray iyo khalqigiisii oo la bedelayo waay nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam midka loo sameynayana lacnada ha ku dhacdo ka sameynayana lacnada ha ku dhacdo marka lama ogola hadduu ruuxu sameeyay maxaa dhacaya haddii ruuxu lagu sameeyay haddii uu iska bedeli karo tiri kara waa inuu tiro haddii aan la tiri karayninna tawbad uma laga rabaa laana waxa dhacda sawirada qaabkooda jirka lagu sameeyo isbedelka lagu sameeyo lacag aad u badan baa lagu sameeyaa qaali ah hadhow haddii la yidhaahdo ha laga bedelo lacag badan buu u baahan yahay waxa laga yaabaa inuusan heli karin waxaa dhici karaysa inuu dhib kale la yimaado markaasoo kale tawbad baa looga baahan yahay haddaan qiso yar idiin sheego ninbaa maraykanka ninbaa ii warramaya maraykanka yimid wuxuu igu yidhi maalin baa waxaa dhacday anoo salaad tukanahay masaajid soo taahay oo salaad ku jira ayaa waxay igu soo xidhay buu yidhi ninku waa caddaan buu yidhi ninka jirkiisa dhan waxbaa ku sawiran salaaddii waan ku jiraa ninkan gadaal igaga soo xidhay salaada yaan yara milicsaday buu yidhi markaasaa waxaan arkay buu yidhi jirkiisa oo dhan wada doorsoon markaasaa waxaan is yidhi wallahi kuwani kani malaha gaangiskii wax dili jiray weeye malaha inuu ku diluu rabaa salaaddii wuxuu yidhi waswaas baan ku dhammaystay iyo baqdin salaaddii markaan ka baxay ninkii si caadi uu ila tukaday salaaddii uu ka baxay markaan ka baxano bannaanka u baxnay masaajidkaan weydiiyey buu yidhi wareedha nin muslim aad u eg tahay maxay tahay waxaan ninkii wuxuu yidhi gaal baan ahaan jiray gabadh Soomaali ah ayaan saaxiib la ahaa buuri anoo gaal ah gabadha marka wuxuu yidhi ayada lafteedu ma fiicnayn qashinka iyo khamrada iyo tumashada iyo waxaana saaxiib ku ahayn gabadhii sidaan saa ula soconay saaxiib u ahay ayaan maalinkii dambe waxaan idhi buu yidhi aan ku guursado markaasaa waxay tidhi gaal baa tahay oo ima geydin gaal baa tahay oo ima guursan karti saaxiibnimadiina way ogoshahay guurna ma ogol macnaa iimaan baa ku jira sooma caasiyad ba ha ahaatee laakiin iimaan baa ku jira waxay tidhi ima geydid oo ima guursan karti ayib seen kugu guursadaa soo islaam bay tidhi waayahay buu yidhi kaxeeyo ciddii islaami lahayd ii gee way soo kaxaysay bay tidhi wadaad buu ii keentay wadaadkii baa ii islaamiyey markuu islaamiyey baan diintii marka sii baadhay buu waxbaan sii akhriyey diintii baan ogaaday buu xaqiiqadeeda waan fiicnaaday khamradii baan ka baxay sinadii baan ka baxay qashinkii baan ka baxay gabadhii saaxiibnimadeedii waan gooyey waan hagaagay buu waa adiga ay arkahay buu masaajidkaasaan joogaa waa cibaadaystaa waan fiicnahay laakiin waxaa dhacday buu anoo fiicnaaday oo wadaad noqday oo diintii ku hagaagay ayaan gabadhii oo weli sidii ah yaan u tegay buu waxaan idhi buu naasidani diinta i gelisay ma ahe ka soo baxda diintaad ii sheegtay aan galay iyo waxaad haysa isma lehe waxaan ka soo baxay aan isguursanay gabadhii wixii bay ka soo baxday buu waan guursaday buu way xijaabatay ayadoo fiican oo toosan iyo hadda xaas ii tahay buu carruurna ii dhashay labadooda soo la yaab ma leh tani iyada oo khariban bay soo islaamisay iyadana
isagii ay islaamisay baa soo hagaajiyey oo ilaahay sabab uga dhigay sababa waxaa laga yaabaa gabadhaas meesha ilaahay hagaageeda ka bilaabay inay ahayd nin gaala inuu guursado markay diiday halkaasaa furuhuba ka bilowday Soomaaliya furuhu wuxuu ka bilowday gaal baa tahay ima guursan kartid isaga inuu hagaagana qodobkaas sabab u ahaa iyadu inay hagaagtana isla qodobkaas sabab u ahaa waa meesha markay yiraahdaan ruuxa muslimka si kasta uu caasi u yahay iimaanka ku jira ay masahlana lama sahlana marka yani wax weeye waxaan ku keenay sawirrada jidka lagu sameeyo marba waxba laga qaban karin waxaan ku yiri war sawirkan maadaama aad islaamtay maad iska goysid wuxuu yiri lacag aad u fara badan buu ikallifaya mana haysto sidaas daraadeed sidaasaan isaga tukanayaa goortii ilaahay wax siiyana waan sameyn laakiin hadda waan iska cibaadaysanay wallahu a'lam